Soo dhawaada asxaabay, inaad fiicantihiin baan rajaynayaa dhammaantiin. Sheekadeenna maanta waxay ku saabsan tahay odaygani. Odaygani waa wuxuuna noloshiisii ku qaatay tuulo. Tuuladan hadda dadkii joogay waa dad ka guuray iyo dad ayna isfahmi karin maadaama uu yahay laakiin odaygan sheekada ku jirta baa waxay tahay waa oday ka sheekeeya oo qoraa ka ah tuulada, aadna loogu xidhan yahay tuuladiisa, waayo wuxuu u sharxaa una sheegaa qiimaha uu waqtigu leeyahay. Waqtigu qiimaha uu leeyahay ayaa uu u sheegaa dhalinyarta iyo inta kale ee haysata waqtiga si ay uga faa'iidaystaan. Sheekadeenna maantana waxay ku saabsan tahay waqtiga iyo sida looga faa'iidaysto. Odaygani waxa uu soo arkay waqtigiisii dhalinyarnimo iyo kiisa waayeelnimada waxyaalo uu la yaabay. Waayo wuxuu yidhi waqtiga annagu kamaanaan faa'iideyn oo waanu iska mala ciyaari jirnay annaga oo isleh marba marka ka dambaysa hadhow ayaad shaqaysan doontaan ama hadhowto ayaa aad waxaad qabsan doontaane hadda iska tunta. Taasi waxay sababtay buu yidhi waxa ay sababtay taasina inaan soo gaadho da'dan aanan waxba karaynin. Isma lihi maalmo yar ayaa ka soo wareegay maalmahan shabaabka ahaa ama dhalinyarta ahaa. Waxa uu yidhi odaygani dhalinyarnimadaydii waxaan isleeyahay keliya malaha waxaa ka soo wareegay waa 3 iyo 4 sano oo keliya, waayo waqtigu siduu isku guuraayo iyo sida uu u fudud yahay dadkuna ay u dhayalsanayaan isma laha. Odaygani wuxuu ka sheekeeyaa ama odaygan waxa uu mar walba uga digaa dhalinyarta ku dhaqan tuulada waxa weeye luminta waqtiga. Waxa uu yidhi waqtigu waa sida seefta oo kale, haddii aadan jarin inta uuna ku jarin oo uu ku jari doonaa oo isagu kuma cafin doono hal second oo ka mid ah noloshaada dib uma soo noqoto oo ku dhaaftaa. Waxa uu kula taliyay dhalinyartii magaalada joogtay dhammaantood in ay ka fogaadaan luminta waqtiga. Luminta waqtigu waxa ay keentaa buu yidhi in aad isilowdo, kabacdina adiga oo isla dhalinyar ayaa tahay, shabaab ayaa tahay, adiga oo weynaaday oo gaboobay oon adduun iyo aakhiro aan waxba u qabsanin. Wuxuu yidhi anigu cidna isma fahanno, waxaan ahay qof da', waxa aanan soo xasuustaa dhalinyartii iyo asxaabtii ila joogi jirtay. Wuxuuna yidhi haddii hal ka mid ah oo aan garanayo maanta ila joogo waan farxi lahaa, laakiin dhammaantood waa kuwo waqtigu na kala kaxeeyay. Waa nin gaboobay iyo nin dhintay. Waxa uu yidhi dhammaantood dadkaasi waxay gaadhayeen tir ahaan ilaa 10 qof oon ardaynimo iyo soo wada maray waqti fiican, saaxiibtinimo, waqti aan jaamacad wada dhiganaynay iyo waqti kale oo aan wada baashaalnay. Wixiiba isku soo duuduuba wuxuu yidhi keliday ayaa hadda geedkaas hoos fadhiya, keligay ayaana waxaan ku noolahay tuuladani. Waxa aan dib u fiiriyaa waan dib u jaleecaa waayihii nolosha iyo wixii aan soo maray, waxaanan ka qaataa cashar lama ilaabaana. Waxa aan uga digayaa dhalinyarta yaryar iyo inta waqtiga haysata in aynan waqtigooda ku luminin wax aan macno lahayn. Waxa uu yidhi wax kastaale oo nolosha jeclayn iyo wax kastaale u xiisaynay waanu helnay, qaarkoodna waanu weynay. Wax kastaalena waxay ku soo dhammaadeen in aan noqono dad gaboobay oo fadhiya oon kici karin. Odaygani waxa uu si dheer uga sheekeynayaa oo taariikhda ku saabsan gaar ahaan waqtiga ee uu noloshiisii soo qaatay. Dulucda sheekada ayaa waxay tahay waqtigu intaanu ku jarin jar, haddii kaleeto isaga ayaa ku jari doona.